colaadeed ee ka soo cusboonaaday Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland waxaa saaka aroornimadii ilaa shalayto isku farasaaray aaga Ras Kamboni ciidamo ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Jubbaland ee daraawishta ay halkaas ku sugnaa sida ay wararka noo xaqiijinayaan ciidamada Jubbaland ayaa si buuxda oo la wareegay magaalada Ras Kamboni iyo garoonkii goorno ay ka dhistay dawladda halkaas sidoo kale ciidamada dawladda saraakiisha hogaaminaysay intooda badan waxa isu dhiibeen dawladda Kenya qaar kalena waxa la sheegay in ay meel ay aadeen aan la garanaynin qaar badan ay isdhiibeen oo hadda ciidamada Jubbaland gacanta ugu jiraan haddaba barnaamijkaasi oo xiisihiisa leh ayaa maanta waxaa marti inoogu ah stuudiyaha Somali TV Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo arrimahan wax badan kana digayay haddana doonaya in uu aragtidiisa ka dhiibto Sheekh Cabdiraxmaan marka hore ku soo dhaw barnaamijka aad baan kugu dhawahay walaalkay jazakallahu khayr wayaak adigana sidoo kale ayaad u mahadsan tahay barnaamijka waxaa ila socodsiinaya anigu Cabdirasaaq Sheekh Mursal xagga farsamadana waa injineer Saciid Saalax idinkuna marta aad hadda naga daawanaysan ayaad wixii aragtaan noo soo dhigi doontaan Sheekh Cabdiraxmaan marka ugu horeysa dawladda Xasan Sheekh markii uu xukunka qabsanayay wuxuu ku soo galay waad aad ma aragtay Soomaalida dhexdeeda ugu baahday oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah haatan loo adiga aragtay xabadii baa dhacaysa dawladihii dariskana oo Ethiopia ay kamid tahayna iskuma ay fiicna marka xagee wax ka qaldameen alxamdulillah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacd horta waan ka xunnahay aad inay maanta dhiig Soomaaliyeed oo muslina oo ka daadanayo dhulkeena inay isku dhaceen labada dawladda hoose maaragtay federaalka ka mid ah Jubbaland oo hogaaminaya Axmed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynihii dalka iyo dawladii dhexe oo Xasan iyo Xamza ay hogaaminayaan inay isku dhacaan horta aad baan uga xunnahay waan ka murugoonaynaa kumana faraxsanin marka labaad anigu markii kelmadda aan maqlay Soomaali heshiisa dunida la heshiisa waan u sheegay madaxweynaha waxaan ku yidhi waxaa ku jira 3 qalad madaxweynaha iyo qolada la shaqaysana way ka cadhoodeen waliba qaarkood halkan markay yimaadeen bay igala hadleen waxaa horta qalad ah Soomaali aan heshiin inaad tirahdid Soomaali heshiisa waa qalad Soomaalidu waa inay heshiiso yaa ka horeysa Soomaali heshiisa ma jirtaba Soomaalidu waa inay heshiiso dib u heshiisiin lama sameyn dib u heshiisiin rasmi ah ma jirto maxaa yeelay arrimaha ka dhacaya dibadaha ama Djibouti ka dhacana ama Ethiopia ka dhacana ama Turkiya ka dhacana meesha ka dhacana maaha arrin aan Soomaali ku heshiinayso Soomaali say u heshiiso khibrad taala khibrad dawliya taala oo Afrikaana taala oo aan ka qaadan karno experience waxaa jira in yar oo Soomaaliya oo asalkiisu reer Djibouti yahay Abdullah Fatix baa dhada buug carabi uu qoray wuxuu ka qoray Soomaalidu dhex taala naarta irhaabka ulka irhaabka iyo amalka in la heshiyo wuxuu soo bandhigay markaa 7 example oo la qaadan karo oo Soomaalidu diraaso ku sameyn karto oo heshiiska lagu saleyn karo waxaa kamid ah ka ugu dhow Somaliland oo Soomaalida kamid ah waxay sameysay si ay dawladdan yar ee Somaliland u sameystaan waxaa heshiiyay reeraha waxay fadhiisteen magaalada dhahdo maaragtay Boorama heshiis rasmi ah ay ku qaateen waxaana ku horeeyay kii kale hore oo Burco lagu soo qaatay maxaan uga jeedaa waxaas wax weeyaan Soomaalidu waa dad 5 arrimood ay walaal ku ah 2 arrimoodna aan walaal ku ahayn وإنا سأفهم وين سؤال الدين بي ولا القطعي لغات بي ولا القطعي دول بي ولا القطعي وحي ولا القطعي مصلحة هي الدم بي ولا القطعي هل عدو أو أيلاذ هاي أو دبدي يجودبك وحيستا أي ولا القطعي لكن ما حي ولا الكوهين الله بارك وحنا ولا الكوهين اسكو فكر ما حسب على ذلك ما نكوه وكلا تجي بس كحدود ويكلا تكتي isku markaasi arrintaasi waxay keentay Soomaali badan Soomaalidu waxayna walaal haddana ku ahayn waa Soomaali la kala wato oo iswadeen dad kala wata Ethiopia wadata Kenya wadata Imaaraat baa wata Qatar baa wadata waxaa wata maaragtay Mareykan baa wata Talyaani baa wata Ingiriis baa wata Djibouti wadata Faransiis baa wata waxaan badana wax la wada kala wato oo nin wal oo xaqaa fadhiya baarlamaanka nin baa taabanaya waa laga dhaxlaya anagu waxaan rabnaa inaan Soomaalida la heshiisiyo
si loo helo soomaali heshiis ah heshiis ah. midaas waa midda koowaad khaladka ah. midda labaadee khaladka ah waxa weeyaan soomaalida heshiiska ah horta waa inay ka horeyso contract social contract waa inuu dhaco agayga. Soomaalida saddexaad waxaan dunida la heshiisa, arrintaas waa been weeyaan. dunida heshiisa ma jirto. dunida ninkii heesta ka sameeyey oo la oran jiray muxuu ahaa heestii uu ku qaadayay ninkii fanaankii soomaalida muxuu ahaa yuhuudi waa boqole rag baa beerinayo xasan samatar miya xasan samatar heestaasi wuxuu yidhi han ku ballanna dunidu waa baaruud, dunidu waa dagaal, dunida nabad ma taalo, duni heshiisa ma taalo. falastiin iyo israa'iil ma heshiinayaan ilaa dhul ay kala qaataan. maya annaka iyo dhulkiina baddeena ka doonay maan heshiinaynaa ka yaabin ka yaabin. duni heshiisa adduunka ma jirto. dunida waxa uu ilaahay yidhi qur-aankay ku qoran tahay wa acidduu lahum ma stadactum min quwa turhibuun. awood diyaariya aad ka cabsiisaan kan soo weeraraya. waan laga cabsadaa lagaa cabsadaa maaha inaa wax weerartid. dadka waxaa loo samaystay waa radcun wa rahba, inaa lagugu soo saqajaamin weeyaan. iminka qofka idhahda masar baan weerarayaa 100 goor buu fikiraya, 100 milyan oo ciidan ay haysataa, maxaa khasaare ka soo gaaray maxaa khasaare ka soo gaaray. qofka turkan weerarada 100 goor buu fikiraya. qofka idhahda waxaan weerarayaa matalan faransiiska 100 goor, maraykan iska daaya, shiina iska daaya. marka Soomaaliya 77 hortii amba 80kii qofka ku fikira Soomaaliland weeraraya dhowr goor buu fikirayay. ciidanka Afrika ugu meesay qaar baa ciidan u bidhisay la turhibuuna bihi adu wallah. marka qof aan dhisnayn awood, labadii awood baa lahayn, tii adkayd iyo tii softiga baa lahayn, ma qaban karo. marka anu waxaan ka soo horjeedaa dunida lama heshiiyo. dunida waxaa lala samaystaa xidhiidh, waxaa loo kala saaraa 3 sokeeye, waxaa duwal shaqiiqa, saaxiibo maaha shaqiiqa waa saaxiibo, isku dan baa tihiin iyo cadow. waa waaqic, waa siyaasa waaqiciya weeyaan. saa weeyaan realitigu. mid waa cadow, midna waa saaxiib, midna waa maxay shaqiiq. waa shaqiiq, waa walaal, waa dhawaash u dhow yahay. ka dhowna si dhow oo la shaqeynaysaa. iminka Jabuuti iyo Soomaaliya waa walaalo dhow, waa shaqiiq wey, isku dan wey. shaqiiq waa isku dan weeyaan. wax walba ha okay, Kenya waxaa noqon karaa saaxiib, saaxiiban waa noqon karaa saaxiib, laano 2 milyan oo Soomaali dhex fadhida oo ka danaysata oo ka shaqaysata oo horumar ku gaadhay, saaxiib baan noqon karnaa. su-aasha Ethiopia su-aal badan baa ka taagan. marka waxaan u baahannahay wadanana waa cadow, ninka doonaya badda inuu qaato imaaraad isku geey waxaan badda u soo xamaan qaadanaya, carab ah cajam ha noqdo, waa cadow weeyaan. marka taas baan u leeyahay meeshaasi ku dhagaas khalad buu ahaa asaasan oo kaas oo soo baxday inuu khalad buu ahaa. golaha wada tashiga qaranka ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku midaysan yihiin waxaa loogu talagalay sida ka muuqata wada tashi iyo wadar ogol iyo in wadanka masiirkiisa hal dhinac loo dhaqaajiyo. fadhigii ugu dambeeyey axmed islaam axmed madoobe uu ka soo kacay asagoo ku doodahaya Puntland iyo Khaatumo iyo dad badan inay ka maqan yihiin. hadduu doono asaga siyaasadiisa wato, dowladdu waxay ugu bedeshay inay ciidamadeeda geyso, xabadna meesha ka bilaabato. yaa qaladka la saaraya? okay, horta waxaa qaladka la saaraya qofka fahmayn wadanka uu xukumo siduu yahay, dalka aad xukuntid siduu yahay maanta. waxaa jira waxa la dhahdo curadkii maxaa dhahdaa federaalka Soomaaliya. Soomaaliya yaa curad u ahaa federaalkaas? Puntland maanta ma joogtaa? may maqan tahay. shalay way iskhilaafsanaayeen ninka la dhahdo Farmaajo, waan macnayn karayniba. laakiin Farmaajo markuu u socday xasan iyo Diniyo wada socdeen, maxaa kala kaxeeyey? waay maxaa kala soconaya? maxaa dowladdii federaalka u ahayd curadka oo asaaska u ahayd ay kaaga maqan tahay ood meelo kale u meeraysanaysaa? waa midda kooda. haddana bacda qaliil Jubbaland maxaa ku daray? anu waxaan aad ula yaabay anoo fikiraya si fiican. ninka Xamse dhahdo khudbad buu akrinayay 4 sano 5 sano ka hor, wuxuu ka akrinayaa Kismaayo. wuxuu leeyahay dowladdan dastuurkii waxay ku shaqaysay Kismaayo ee Jubbaland iyo kii dowladda dhexe. annaka Axmed Islaam madaxweyne ka dhigayna, nin naga hor joogsan kara ma jiro. fariid ayuu u dirayay, wuxuu u diray Farmaajo
dowladdii farmaajo u diray dowladda dhexe isagii uma iminka hadlaya oo kule dastuurkii waad ku tumatay kana waad ku tumatay waa lagugu soo celinay oo badanaa ninka saaxiibkaya wuu kala aflaynayaa markaa saaxiibkay lahad waa saaxiibkay isku dacwad baan ahayn haye wada xalaqatul islaac baa ku wada jireen marka waanan yabana wada joogi jirno was dhaqaala aad baa isku dhaqaala si fiican ninka saaxiibkaya waan la yaabay muxuu labaa la aflaynayaa waay maxaa ku adibayaa marka qaarkood waxaa jira waxa la idhaahdo qofka haddaad gaari weydid gacantaadu isaga isku dil waxaa jirta waxa la idhaahdo imaa goyseyna gobolkay baa kugu yaala soomaalida imaa goyseyna gobolkay baa kugu yaala marka waxaa la idhahdaa maxay maroodi isku jabi lafa maroodi waa la isku jabiyaa qofka waa la isticmaalayaa adu waxaa tahay imika mustacmal war adu gobol baa ka soo jeedaa gobolkaaga waa maxay waa jubbaland shacbiga jubbaland baa anu la hadlay 99% maxamed salaam bay la socdaan ama dulmi ha kula socdaan ama cadaalad ha kula socdaan dadkii oo dhan waxaan fadhinaa maaha magaalada Minnesota qof kastoon arko oo ka yimid asalkiisu halkaa ka yimiday wuxuu ku leeyahay islaam bay la socdaa dumarkii ma arkay hooyooyinkii ma arkay odayaashii ma arkay odayragii janaalada ahaan jiray dowladdii Soomaaliya waxay ku leeyihiin anaku halkaasaan taaganahay inaan kaga waxay lama garan marka dimuqraadiyaddu waa maxay waxay dadku u bataan weya dadkii meesha deganaa waxay u badan yihiin anu axmed islaam waa la yaabaa waxaan dhahdaa waa ninkan meesha mu ka dalbaxa mu iska daayo isaga waa goonidiis taas laakiin dadkii watay hadday wataan maxaad oran kartaa qofka dictatorka wuxuu ku xiyay marka la wadan dadkiisa baa ku jira uu qasbayo iyo imika Erdogan waa la wataa dadkiisa ku celinaya dadal ma oran karaysa laakiin Bashar dictator baa wadii arkay farxadda dhacaysa marka adiga waxaa muhiim ku ah maadaama aad tahay madaxweyne Soomaaliyeed war Soomaalida xakuti ma aha xamar hada xamarun maaha meesha yar ee uu maxaa uu degan yahay ya 4 kiiloomitir dhaka oo maxay 4 dhaka oo baxa karayo marka aad ciidan qaadayso oo geynaysaa maarta kiiloomitiro 100 kiiloomitir aad geynaysaa ciidan marka aad waliba anu waxaan ka nacsanahay dhiig Soomaaliyeed daadinaysaa marka waa dhalinyarada yar eeg dadkan uu qaado horgeeyay Jubbaland u geeyay oo dadka shabaab hor joogay shabaabka fursad siinaya absolutely fursatul hayat buu siinaya inuu noolaadaan fursatul istimraar inay sii socdaan fursad kale loo bixinaya fursatul tadakhul in la soo fargeliyo wadanka waxaa ma shay ka adeegtaan waxaa jira jazakallahu khair waxaa jira sheeko mar laga sheekaysan jiray oo dhacdo Soomaalidu ma maamuli kartay hal maamulo tiibana laga saaray mar dhow Soomaalidu ma maamuli kartaa oo lacagtii baa loo soo ceshay oo hubkii baa loo fasaxay wixii dhan Soomaalidu loo soo daayay imika waxa la oran doonaa oo khaldan oo ina dib loo cesho wistaxta wisaaya laana dadkan isma maamuli karayaan adiga arkay dhig kala daatay anu maalin hore waxaan idhi 19 kii ku noqonay maxaan u 19 ku noqonaysaa waxa weeye marka aad u fiirsatid kelmaddu Axmed Islaam yiri war Puntland way maqan tahay Khaatiman way maqan tahay anna waan ka socday macnaha waa inaad u fiirsatid Soomaali waa dhaqanay reer bal sheegay reer weyn oo Soomaalida ka mid ah yaa maqan bay ka dhigtay marka dagaalka ugu ku noqonaya marka 9 ku noqonaya 9 koodii iyo koodii ku noqonaya marka aqligaas qofka nin jaamiciya oo professora oo jaamacad dhigay marka qaar waxa la sawir siyaasiga Soomaaliga ee jaamicigi marka qaar agad dhibaato ka jirta su'aashaas weydiinaysa aniga waxaa jirta kelmad aan sheego Soomaalida waa inay iga qoraan aan jecelahay madaxda Soomaalidu inteena madax noqon ka hor shaqadii ka soo shaqeynayeen maxay ahayd jimciyad bahayd jimciyad madaxda oo dhan ba inta ugu badan jimciyad ma inaan dhaafin waliba ku wadaadada association ka soo shaqeeyeen associationku muxuu shaqadiisu ay tahay ma taqaana fuqara soo qor wax u qaybi dowladnimadii wax u fahmeen ma intaas kaalmaatig wey caqliga u fiirso waxaan ku dhahaa war ka baxa maskaxdii associationka maskaxdii estateeka gala dowladda gala min caqli aljamciyaat ila caqli dowla association ha ku fikirna iyo jaamacado hore dhigayseen iyo ha ku fikirna state gala imika waa wax kale stateku waa shaqo kale stateku
ستيتكم محو شقديس ومحي وحويان تنازل ولا اسكو تنازلوا تفاهم وإلا يسفهموا تناصح وإلا يسوانيو وإن التعاقد وإن شيء لقالوا حويان خبير نقطة ويان نوقي ستيك وحود معاوية لما كلمة عجيبة تاريخ كقرأ معاوية وحولي أنا وحان هايستا تنتا مركي الشعب كجيلان وان رعاه مركي أي فراك قادنا وسوير الجيلان سنة هذا هو سياسي وسياسي يعني شعرة معاوية لا يقال ولذلك ضدك قاركود واحد هذا سياسي وحوبة طيبة علي والدهاء معاوية طيبة علي ودها معاوية والدهاء معاوية طيبة علي عني وناك سنبها وحكمة بضن وناك فرق بضن وحلو ما حكم كانوا الدهاء لو بايع يناف ما انتس الدهاء دو سياسي وين ما كرا لو بايع ما اخر ما ادرك ما هو ضلك حد معها سي دولد وببادي لها كشقه marka sheekh xasan anu waxa oran lahaa maanta waxa weeyaan ciidankaagi qaar baa ku qaxootiyoobiga Kenya qaar baa dhigtaada labadaba ciidano labadaba wixii Axmed Ube ka dhintana adoo ka dhimanaya adaa madaxweynaha wixii inta ka dhintana adaa ka dhimanaya wixii khasaare ka yimaada meeshaasi adoo ka imanaya marka aqligaaga waxaan ku leeyahay xabad ku darso waa tahay ololahan hadda socda Jubbaland waliba ka dhanka ah markaan ka tagnay siyaasadda madaxweynaha ee loo joojin maayada oo Puntland uu joojin waayay bedelku walaalo dhihi lahaa oo maartay la fariisan lahaa wada hadal lagu dhameyn lahaa oo hadda ra'iisul wasaaraha Jubbaland runtii xoogiisa inta ugu badan uu gelin hayo asagana Jubbaland baa soo saartay maxaa ka dhalan kara isleeda asaga siyaasaddiisa mustaqbalka ama dhibaatinta laga u geysanaysa wallahi laba mid ba filada saaxibka inuu ku yiraahdo ninkan la yiraahdo Xasan وارتلك بعد كده يقول كسعودة إنه كده هذا وصورة قل وشغلي سوى هالك كله مية وشغلها كله مية وما له كلها منها دنو وايدي لأنه ضدك ضدك فرق بحدي أرن فاسوا ميد ويان ميد الله بعدي وحويان إن أي ماشي صومالي كدو ميسي إنه حمزة جوجو ماشي صومالي كدو ميسي إنه جوجو ماتا أنا كمان حلا كل مرة اللي رب بدن مقدشوا إبيك جوجها مقالة دين جوجت وحكون محني قصوا عشي حيلحدين قطك وشتاقي دقالي وشتاقي عبسي بقى أبو ربطي دقالي كيني وريقي إتوبي وريقي ماش لتي كده لتاقي يجيقي إمك وقاد بوشد مساها وعشده ودقالي حمل يالي وحاق نرشده ودقالي حمل يالي مركا حولي بقى ياعي مقدشوا مقدشوا رجالي بدو حولي يسوي جيدتي والحظية ما دتكي وسلا يا أحسن خوف بلا بربر مستقبل كدير بلا عشان يا ولذلك نبى كفري واحد نخبر واحد ولا نبى كفري مقدشوا ما لها الدمر كوي كويرا تمها يكون قرحيا وحيري لبدي سنة دنبه فرماجو دتكو انت ادو يمادين بيد دت بدني بقى ووزيرده اي قبان بقى ماشي مجرى عروسيه دعي جري ايه ماشي صح حنبي لأن أبد كوجي وزيرده كينيجي قف كلي يمسك ماشي مقاعد الجزيرة سهلة وتلك ولا كلا ياعي مركا waxaan u timo feeray way buri amba aruf aba uu hagaajina jirka ba weynay marka waxaas wuxuu ka tusayaa in wax soo yaraanayaan marka saadaradeed Hamza eeg dowladda Soomaalidu khaladada weyn ee galis waxa kamid ah dowladdu markii la yiri war dowladii Maxamed Siyaad Barre waa la riday waxa loo ridayna waxay ahayd dowlad presidential madaxweyne oo xoog u adag waxa rabnaa baa la yiri dowlad baarlamaani ah madaxweyne awood iskaliye tabba la sameeyay baarlamaanka ra'iisul wasaare fiican oo baarlamaanka laga xukumo iyo madaxweyne isagoo madaxweynimadu haysta wuxuu imika wadaa inuu dowlad madaxweynaha samaysto xasan yaa u saxaxaya oo wada حمزة خلطات طريق قال ما يرى حمزة وحوضها إنه بربوريو عبد الرحمن عبد الشكور يا كتر على ميمك نظام كيف فترة معها نظام كي برلماني لها دستور كان يجيب بديلها ونظام مدحوينها على سمعناها سوى حسن مدحوين مش مثلا حسن وزاره بابينها أريد تعسير معها أريد لسكوها فقسيه أريد صومالي دانو أنا معها أريد صومالي وأنا صومالي يتواصل ضعفني ما الله منه وحاسو دوحة فصحي وايو حمزة برجع حمزة waxa uu muuqda حمزة inuu yahay waxa jira aniga Djibouti markaan ka sheekay waxa dhada
ra-iisul wasaaraha waxaa laga dhigaa nin canfarya madaxweynuhu waa soomaali saad ogtahay laakiin ra-iisul wasaaruhu waa bila awood maxaa markaa muxuu noqday mataqana ra-isul wasaaraha jabuuti joogay waxaa loo yaqaana balato ayuu noqday balato waa ninka saacil bariiska mataqaana kan oo loo dhiibo fariinta gudbiya marka madaxweynaha fariimaha wasiirada ugu dhiiba xamse tiib uu noqday fariimaha loo dhiiba wuxuu ka baxay ra-isul wasaarnimadii culusayd hadda statekiisi baa lagu burburinaya uu lahaa ama ninkii muxuu ahaa ka horreeyey muxuu ahaa khayre ama kii ka dambe la dagaalami jiray muxuu farmaajo muxuu ahaa rooble khayre ilaa iyo cabdiweli raggii hore dhan waxay ahaayeen saacid ra-iisul wasaarayaal baa hayeen buuxa madaxweynaha isku dhacaan waxa adduunka hore buu ka jiraa isku dhaco laakiin waxaa laga rabaa inaa la ilaaliyo ama inuu sharaf ku joogo iyo awood ama inuu meesha baneeyo inuu baneeyo laakiin aad dadka ka iibso tiraadid baabi ban wasaaro madaxweynihii soomaaliya maxamed isaaq boqol soo cisha adigu waa burburinta ummadda soomaaliyeed buu ka qayb galaya waa tahay shaqana waxay dhaceen dagaalka ugu horreeyey dowladda ku guuldareysatay dabcan waxay istusinayeen inay jubbaland ka adkaato si maamul goboleedyada kale ay ugu qus qaataan tii hadda waxaad moodaa inay faraha ka baxday maxaa hadda tala ah anigu wallahi horta aan siin lahaa 4 talo madaxweynaha tala aan siin lahaa ilaahay ka cabso waa talada koowaad taariikhda iska mudoobeen nin waxaa tahay aqoon-yahana oo doctora haysta wadaad baa tahay qur-aanka iyo xadiiska garanaya maalin kastoo jimcaha miskiid baad ka hadashaa marka waxaan ku oran lahaa intaad ilaahay ka cabsatid xoolaha iyo dowladdii iyo wixii dhan baad isku darsatee iska jooji waxaanoo aakhiro wax ku raacaya ma jira 70 jir baa dhaaftay hadyeeto 70 sano cumrigaagana waa dhaafay taariikh ka tago ummadda soomaaliyeed macna uga tag haddaad ku guulaysan kareenna iska dhig taladaa waan siin lahaa isaga axmed waxaan oran lahaa shicibkaagu waa kubataa waa caddahay laakiin waxaad ku dadaashaa inaad noqotid qof positive ah oonan u fikirin jubbaland oo quraate oo u fikiraya soomaalida weyn ee ummadda soomaaliyeed taariikhdaada hore iska dhaaf taariikh cusub aadna samaysan ayaan kula talin lahaa nin deni dhahdaa jira ninka deni dhahdo waa nin soomaaliyeed oo isaguna gobol dhan xukuma isagana waxaan ku oran lahaa war maanta waa maalintii puntland tallaabadii puntland qaadi lahayd qaad iska daa waan cadhaysanahay iyo madaxweynahaas ma fahano maane arrinta heshiiskee gal soomaaliya badbaadi taariikhdana waa wax kugu furan inaad noqotid qof taariikhda gali kara yaan isagana ka oran lahaa ugu dambeynta waxaan oran lahaa dadka ay u furan tahay inay heshiis ka furaan meeshaas oo culummadu ay ugu horeeyaan culummada iminka waa laba un bay u kala baxeen culummo uun manaabirta joogto halkaa un xadiis ka sheegta iyo culummo dowladda la socota culamaa dowla oo maaragtay maskiidka madaxweynaha iyo hareerihiisa ka khudbadaysa waana waxaan u diidanaa meel la yidhaahdo majlis fatwada culimada loo sameeyo fatwada madaxweynaha iyo dowladda u sameeya sida maaragtay kuwii sacuudiga iyo masar iyo inaan saa noqono maaha culimmadii la yaqaanay soomaaliyeed xorta ahayd hadday joogaan kenya hadday joogaan soomaaliya hadday joogaan soomaalida etoobiya hadday jibuuti joogaan hadday yurub iyo maraykan joogaan waxaan leeyahay culimaduna waa inay xamaan qaataan oo dagaalkaas inuu dib inoo celiyo sagaashanadii nagu cisho iyo wixii hore laga ilaaliyo oo heshiiskaa la qado weliba culimmada maaragtay xorta ah haggan degan amba yurub degan way xamaan qaadan karaan ilaahay dartiina waa xamaan qaataan iyo aqoon-yahanka intaasaa wari laha insha allahu tacala jazaak allah sheekhan aad baa mahadsantahay